23 bishii May 1986 Maxamed Siyaad Bare ayaa shil baabuur galay 32 ayaamood ayuu suuxsanaa oo dhulyaal ku ahaa isbitaal ku yaala caasimadda Sacuudiga ee Riyaad. Sii jirtaasi ma jirta caafimaadkii cudur ayaa bedelay wuxuuna noqday diin qoloftii laga siibay oo haad iyo habar dugaagba ay u nugul yihiin inay ku waliimaystaan. caafimaad daradii Maxamed Siyaad Bare waxay keentay in qof kasta uu hawaysto inuu mar uun ku fariisto kursigii Maxamed Siyaad Bare ee Villa Soomaaliya. mucaarad fara badan ayaa gudaha iyo dibaddaba laga sameeyey siyaasiyiin magac leh iyo ganacsato caan ahaa ayaa 15kii bishii shanaad 1990 aasaastay kooxdii loo yaqiin Manifesto waxayna Maxamed Siyaad Bare ugu baaqeen inuu xukunka ka dego. sidaasi oo kale Maxamed Faarax Caydiid, Cabdiraxmaan Tuur iyo Axmed Cumar Jees ayaa labadii bishii tobanaad 1990 mustaxiil oo deegaanka Soomaalida Itoobiya ka mid ah kaga dhawaaqay isbahaysi ay ku haminayaan inay hogaaminta dalka kula wareegaan. sidaasi awgeed inta badan mucaaradkii Maxamed Siyaad Bare ka soo horjeeday waxay ku midoobeen laba garab oo kala ahaa Manifesto oo xamar lagu aasaasay iyo Mujaahid oo mustaxiil lagu unkay. 30kii bishii December 1991 waxaa xamar ka qarxay dagaalkii weynaa ee looga taqalusay Maxamed Siyaad Bare. ciidamadii dawladda ayaa laga itaal roonaaday waana ay kala yaaceen oo dadweynaha ay ku dhex milmeen. maamulkii Maxamed Siyaad Bare wuxuu ku soo aruuray madaxtooyada iyo raadiyo Muqdisho. 7dii bishii January 1991 Maxamed Siyaad Bare wuxuu howlgeliyey guddi loogu waqlalay sulux oo ka koobnaa 75 nin oo Maxamed Siyaad Bare bulshada uu ka soo dhaxushay wuxuuna u xil saaray dhexdhexaadinta maamulkiisa iyo mucaaradka. isla taariikhdaasi wuxuu ra'iisul wasaare u magacaabay Cumar Carte Qaalib. guddigii loo yaqiin sulux iyo Cumar Carte ayaa xaruntii madaxtooyada lagu shiriyey waxaana loo sharaxay waajibaadka shaqo iyo xilka saaran. haddaba si ay u hirgeliyaan xilkii loo doortay waxay la saayireen mucaaradkii dawladda ee ka soo horjeeday hase ahaatee guuldaro iyo gacmo maran ayay kala kulmeen. hindisihii sulux waxaa diiday Generaal Maxamed Faarax Caydiid oo ku adkaystay in marka hore Maxamed Siyaad Bare dalka isaga baxo. waxaan anagu la bilaynaa waa Maxamed Siyaad iyo wixii fikradiisa u shaqeynaya oo la qaba baaba'aas iyo dhibaatadaas dalka u gaarsiiyey inay sii dheeraato baan la bilaynaa. marka uu ilibka ka baxo Soomaaliya oo dhan baan isku biiray waan isku imaanay waan tashanayna laakiin ma ogolin inaan wada hadallaan laga yeelano isaga iyo cid ka socota innaba inaan la yeelano horta war horaan goosanay taas mana ku tali jirno. marka idinku haddii ninkii baxay oo uu socday idinkoo ka mid ah naga mid ah oo aan isku mid nahay in Soomaalinimo iskaga mid nahay oo mas-uuliyad Maxamed Siyaad diiday aan wadin baan wada hadlaynaa isku nahay. markaasaa xabad joojin imaan kartaa annagoo xora oo dalkii xoreynay rejiimkii Maxamed Siyaad naga tagtay ayaana iskugu imaan karnaa wada hadallo mabda anaguna. 26kii bishii January 1991 habeenkii uu Maxamed Siyaad Bare ka holeelaba xaruntii madaxtooyada hogaaminta dalka waxaa u tartamay labadii kooxood ee kala ahaa Manifesto iyo Mujaahid mustaxiil. balse Manifesto ayaa hoggaanka qabatay iyadoo aan la dooranna iscaleemo saartay. Maxamed Siyaad inta uusan ka holeelin madaxtooyada ayuu ururadii mucaaradka kala hadlay raadiyo Muqdisho isaga oo ka codsaday in ay shacabka rasaasta ka daayaan. waxaa ka sii xun dadka masaakiinta ah oo inta xabadii lagu wareeriyey iyo boobkii iyo wixii sii qaxaya oo gaajada ula qaxaya oo jidka daadsan mee dhaba loo furo oo xamar laga baxaa waxaa daadsan dad masaakiin oo sii guuraya. waxa aan leenahay war dadka guryahooda u daaya xiriire ka daaya xabadda iyo qaylada iyo boobka iyo qulun waxa ka foosho ka daaya. dad islaam haati Soomaali baati sharaf iyo karaamad laan jirta wayna wada xoreeyay almiina wax xoogaa dad iska xortay kulli xorin حتى إن أتقرتن هي أحد الإسلام الذي كبعضها وحرام. 29kii bishii January 1991 Manifesto waxay ku dhawaaqeen in Cali Mahdi loo doortay madaxweyne ku meel gaar ah. isna waqti badan iskama lumin 1dii bishii February 1991 wuxuu degdeg u dhisay dawlad wuxuuna ra'iisul wasaare mar labaad u soo magacaabay Cumar Carte oo Maxamed Siyaad Bare 7dii bishii January 1991 u magacaabay ra'iisul wasaare. si dawladdaasi loo ansixiyo madaxdii sare ee UAC waxay shir ku yeesheen Hotel Tawfiiq
laakiin maxamed faarax caydiid ayaa si cad u diiday dhismaha dowladda wuxuuna soo jeediyey in la sameeyo guddi maamul oo kumeel gaar ah oo aan lagu degdegin dhismo dowladeed ilaa laga xaqiijinayo laba arrimood midda koowaad oo ah in la qabto shirweyne ay ka soo qayb galaan ururada hubaysan gaar ahaan SNM, SBM iyo SSDF midda labaad oo ah in la soo qabto ama dalka laga saaro maxamed siyaad bare oo suurtagal aysan ahayn in xamar dowlad laga dhiso iyadoo maxamed siyaad bare gobolka Gado uu joogo waa sida uu yiri Generaal Maxamed Faarax Caydiid kooxdii manifesto waa ay ku gacan seereen tala soo jeedintii Generaal Maxamed Faarax Caydiid waxayna go'aansadeen in dowladdii Cali Mahdi ay sii shaqayso haddaba barnaamijkani waxaan xoogga ku saari doonaa dembiyadii waaweynaa ee dalka ka dhacay maxamed siyaad bare kadib ayaa eedda iyo qaranjabkii ugu weynaa lahaa maxaa yeelay maxamed siyaad bare wuxuu dalka ka baxay iyadoo daarihii magaalada ay dhisnaayeen xafiisyadii ay qalabaysnaayeen dukumentiyadii dowladda badankood ay yiileen xafiisyada dembigii koowaad waa kala diristii ciidamada qalabka sida cumar carte oo iminka ku nool dalka Sacuudiga oo ahaa nin u janjeeray dhanka Carabta gaar ahaan dalka Sacuudiga xariifna ku ahaa sida loo beerlaxawsado Carabta ayaa 7 bishii January 1991 maxamed siyaad bare u magacaabay ra'iisul wasaare 25 maalmood kadibna Cali Mahdi Maxamed ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay mar labaad 1 bishii February 1991 muslim iyo gaalo caddaan iyo madowba fajac iyo amakaag ayaa ka soo haray dowladdii maxamed siyaad bare ee la riday ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyey oo mar kale ay mucaaradka soo magacaabeen mucjisadaasi wax lagu macneeyo ayaa la garan waayey waxaana loo arkay dowladdaasi nidaamkii siyaad uu ka maqan yahay cumar cartana wakhti badan iskama lumin wuxuu ku tilaabsaday shirqool oo muddo dheer ku taamayey fulintiisa maalintii la magacaabay ma ahee maalintii ku xigtay wuxuu tagay raadiyo muqdisho wuxuuna ka baahiyey khudbad taariikhda baalmadow ka gashay wuxuu ciidamada qalabka siday ku amray inay hubka qaranka ku wareejiyaan jabhadaha oo iyagana ay isku dhiibaan ciidamada qalabka sida oo ka koobnaa 5 talis booliska waxaa la aasaasay 20kii bishii December 1943 xoogga dalka oo la aasaasay 12kii bishii Afraad 1960kii asluubta oo la aasaasay 1dii bishii Toddobaad 1960kii laakiin dib u habeyn lagu sameeyey 22kii bishii Labaad 1970kii NSS oo iyadana la aasaasay 15kii bishii February 1970kii iyo gurwadayaasha oo iyagana la aasaasay 18kii bishii Sideedaad 1972 ciidanka qalabka sida waa tiir dhaxaadka jiritaanka qaranka iyo difaaca midnimada khudbadii cumar carte waxay ciidanka qalabka ka dhigtay deero kala yaacday midnimadii Soomaaliyana waxay noqotay tusbax go'ay oo midba meel ku faniinay hubkiina wuxuu u gacan galay wax ma garato xasuuq ba'an geystay cumar carte qaalib wuxuu sameeyey jariimo baaxaddeeda ay weyn tahay ilaa ay haddana aan la aqoon wax lagu tilmaami karo inuu dembigaasi galo 3 arrimood midii ku kaliftaba ilaa ay hadda lama yaqaan midda koowaad oo ah in markiisa horeba uu ahaa mid kabaqaad u ahaa amxaarada midda labaad oo ah inuu ahaa soo seexi Soomaalida cirka dig looga soo siiyey midda saddexaad oo ah inuu doonayay inuu dalka kala gooyo oo SNM ay ka faa'iideysato fursadda dahabiga ah maadaama ciidankii ugu badnaa iyo hubkii ugu badnaa ay yiileen dhanka waqooyiga waa guutadii 26aad waxaana loo badinayaa inuu arrintaasi u sameeyey in ururkii SNM ay ka faa'iideystaan fursaddaasi dahabiga ahayd haddaba markii ay arrintii faraha ka baxday oo labadii dhinac manifesto iyo mustaxiil gacmaha isula tageen ayaa dowladdii Jabuuti go'aansatay in Soomaalida shir ay u qabato shirkiina waxaa lagu heshiiyey in Cali Mahdi madaxweyne kumeel gaar ah uu sii ahaado muddo 2 sano ah laakiin ururkii SSDF ayaa shardi ugu dhigay Cali Mahdi inuu xilka ra'iisul wasaaraha ka dheereeyo Cumar Carte ra'iisul wasaare cusubna loo magacaabo nin u dhashay heybta uu ka soo jeedo Cumar Carte loona baahan yahay nin Soomaalida tabaalaysan ka samata bixin kara silac iyo darxumada tala soo jeedintii ururkii SSDF Cali Mahdi kuma aysan duxin wuxuu mar kale oo saddexaad ra'iisul wasaare u magacaabay Cumar Carte sida ay sheegaan dadka aqoonta u lahaa Cumar Carte
waxay ku tilmaamaan habaacsane aad u yaqiinay sida madaxda loo beerlaxawsado. sidaasi aawadeed mar saddexaad bishii 5 1991 ayuu Cali Mahdi u magacaabay Cumar Carte ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Cumar Cartana markiiba wuxuu dhisay dawlad ka koobnayd 83 wasiir. wasiiradii la soo magacaabayna kuma jirin hal qof oo ka soo jeeda heybtii Maxamed Siyaad Bare iyo heybta Gabooye. kaba sii daranee wasiirada weligood hal maalin ma shirin, midkoodna xafiis wasaaradeed ma fadhiisan, maxaa yeelay agabkii xafiisyada yeelay waxaa lagu iibinayay suuqyada magaalada iyo gobollada iyadoo dadka ay moodeen in hantidaasi uu leeyahay Maxamed Siyaad Bare. Cumar Carte oo aanan golihiisa wasiirada weligii la kulmin ayaa 30kii bishii 10aad 1991 sadaqo iyo siyaaro ka doontay Sacuudiga, dib dambana uguma soo laaban xamar, waxaana la sheegaa markii uu diyaaradda sii raacayay inuu yidhi UAC waa matoor shidan oo aanan lahayn meel laga damiyo. dembigii labaadna waa suntii lagu aasay xeebaha Soomaaliya, waxayna dhacdadani dhacday intii uu xilka hayay Cali Mahdi, inkastoo Cali Mahdi Maxamed uu eedaasi iska fogeeyey. arrintaasu ma ahayn arrin maanta bilaabatay, waa arrin muddo fara badan baa soo jiitamaysay, waana arrin been abuur ah oo la siyaasadeeyey, waa been la siyaasadeeyey, waxaana aabbo iyo hooyo u ah arrintaas nin nuur la yidhaha magaciisa labaad oo iga maqan yahay laakiin gurigayga uu yaallo oo degan magaalada Genova oo ku taalla dalka Talyaaniga ayaa ka dambeeyey been abuurkaas. ninkaasoo siyaasadii caydeed ay qalbi jirtay. kala diristii ciidamada qalabka sida waxay ahayd tallaabo qaldan oo qara iska tuurnimo ahayd, sababtoo ahayd dawlad aan ciidan lahayn caalamka kama jirto. sidaas aawadeedna intii badnayd ciidamada qalabka sida waxay ku biireen kooxdii Manifesto oo gacmo furan ku soo dhaweysay. difaac la'aan in dawlad la noqdo waxay la mid tahay geel caloosha laga raray oo tuurta laga ciinshay. suldaanka ama madaxweynaha waa shakhsi dadka la'ayni ah, wuxuuna dheeryahay awood amarkiisa lagu fuliyo. haddii uusan lahayn ciidan amarkiisa fuliya wuxuu la mid yahay dadka caadiga ah, maxaa yeelay bulshada inta alla ka cabsata iyo inta askarta ka cabsata waxaa badan inta askarta ka cabsata. hubkii qaranka wuxuu u gacan galay dadweyne 21 sano dulmana oo ciil qabay, wuxuuna sababay isdil baahsan, bililiqaysi iyo kala aargoosi. murtiba waxay leedahay nin hooyadii ka guuray eedadii uma nagaado. dawlad ciidankii qaranka kala dirtay lagama sugayn inay shacabkeeda daryeesho. dawladdu waxay ahayd inay ilaashato ciidamada qalabka sida si xukunkeeda u sii jiro. haddaba ciidamadii qalabka siday iyo shaqaalihii dawladda oo loo deeriyey waxaa ka dhashay macluul iyo cagabarar. waxay kaloo kordhisay boob iyo dhac baahay iyo weliba mooryaannimadii oo noqotay meherad lagu shaqaysto. xaajo waxay ku biyo shubatay saari qori leh mooyee nin kale silac ku nool.